السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan in wada qiso oo ma sha Allah tabaaraka Allah. fadlan waxaan inga codsanaa oo dalab ayaan inga codsaa like iyo sharing iyo comment halay sameeyo anaan YouTube ka halaygu caawiyo meeshii aan taagnaa jirleen taaganahay waxaan haysan views badan ma haystay laakiin dad badan way fiirsadaan laakiin views kuma helo laakiin way fiirsadaan ma sha Allah fiidiyoyaasha hadda fiirsashadiisu way badan tahay laakiin ma helo scrap ma helo marka walaalay maanta waxaan in wadaa qiso oo doctor hadda waxa socda ayaamahan oo la yaaba oo aniga ka yaaba ma ogta adduunkiina caatada ayna caafimaad buurnikiina caafimaad lahayn oo caatada ay leedahay healthy iyo caafimaad iyo waa la isla wada arkay dadka dhan way wada arkeen qofka bini'aadamka Allah ayaa caafimaadna keeno haddaad caafimaad qabtid waxa ugu orodid ayaa iska yar buurin waa jaahilnimo dadkayna waxay iska jeceliin inay qofka buurato buurnika caafimaad ma aha awalan wadna xanuun leh وثانيا ساربت وما سعكرت وثالث مركا ilma dhashay ilmaha saarabtu wax ma ugu qabsan kartid war buurnika wax qurux badan ayaa u maleysay laakiin buurnika qurux ma laho qofka inuu na buurneen inuu na caadisneen midyal inuu noqdo dhaxdhaxaad inuu noqdo dumar hadii la yaana in laga bato 60 kiilo ma maco 60 kiilo hadaad ka badatid waxba aa qabsan kartid male caruuraan wax u qaban karin lafaadaan wax u qaban karin wallahi buurnika marka qof buuran arko anigu waana cabsoodaa ma aho ayaa inaan ishayda ay galayso maya waan cabsoonaa waxaan dhahaa Allah qofkan ilaah u fududay haddana wadamada aan joogno qurbada ma dhididaysid macaan ayaa ka helay karstaroon buuxa ayaa jiro hadda waxaa socoto filin Soomaaliya ayuu ka socdaa Yurub kama socdo buurnin ayaa la iskugu faana buurniga la iskugu faana wax fiican maladada gud ugu jiro hadda waxaa la soo tuuray doctor ayaa ka hadlaya waa intisina waana ila sheerina waxaan ila sheerina buurnika ma wixii ilaahay caafimaad adiga kugu siiyay mase waxa adiga raadinaysid mase wax ilaahay caafimaad candhuuftaada inuu ilaahay intuu kuu maceeyay ayaa buurto والله هدا بورنا ربتين أنيجا ما أنتوا نيشيجا بورنا هدا ربتين حلبة عانا كوكر كرسدا عودنا عبا صبح ذنا عبا والله وأركزين هالها لقيتين بتاع أو نورس وجهها حتى هل في الدلالة إيه واحد إسكابيسا موس عانا إسكشيدو رايس بودن بريس عط أو لغو كركرية عانا إيه بعدين أكو درتي سبق أم بطر وحا أتقاني أكو درستين والله ساء بورنيسين ونحيسين ويابسين ما شاء الله لكن بورنين وح كيميكاله ما في عنه سوماليا يمن أيام ملب كانت أيالله ملب كي وحوكو قصمينا عليري وجدن وكابورنا علوش وكابورنا كربيو بورنا وعذر وكيميكال رق يدمر بو أدريا إلا تجستا قصدان sida uu hadlaayo wiilkan anigana iga hor dhicin fiidiyowga inuu ka bato 10 daqiiqo ma jecli ila fiirsada walaalihii qaaliga malabkan isku ayuuyo xagee baa lagu sameeyaa iyo saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda weli qaasatan dadka Soomaalida marka koowaad malabkan waxaa lagu sameeyaa dalka Yemen ayaa lagu sameeyaa waxaana la keenaa dalka Soomaaliya ma sameyso shirkad Soomaaliyeed ma sameyso waxaa sameysa shirkad laga leeyahay dalka Yemen ayaa sameysa ganacsi ahaan baa waxa loo keenaa dalka Soomaaliya markii la keeno qof kasta waxa laga dhadhiciyaa ama loo sheegay malabkan in lagu ayuulo ama qurux laga qaado. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh halkan nagala socotaa waa wanaag qoyska aalaam naga barateen arrimaha xiisaha iyo barnaamijyo xiiso geliya please markii kugu horeysa hadday tahay subscribe noo saar iyo like waana ku mahadsan tahay subscribe kaaga iyo like taadaba maanta waxaan ka hadlaynaa malabka la isku cayliyo malabka la isku cay daawooyin dhir baa lagu soo daray miyaa mise waa waxyaabo kale miyaa lagu soo daray asaga faahfaahin imika waa daawanaynaa ila daawada
haddii aan guda galo su-aashaada ah malabkan laisku cayiliyo xagee baa lagu sameeyaa iyo saameyn intee la-eg ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda weli khaasatan dadka soomaalida. marka koowaad malabkan waxaa lagu sameeyaa dalka yemen ayaa lagu sameeyaa waxaana la keenaa dalka soomaaliya. ma samaysa shirkad soomaaliyeed ma samayso waxaa samaysa shirkad laga leeyahay dalka yemen ayaa samaysa. ganacsi ahaan baa waxaa loo keenaa dalka soomaaliya markii la keeno mexica lagu sameeyaa. haddaba ogaada kan ragga isticmaala kan mexica lagu sameeyaa malabkaasna waxaa lagu sameeyaa yemen. waxay u hamiyeen inay malabkan isticmaalaan saas awgeed ayaa malabkani markaasi loo keenay dalka. saas awgeed ayuu suuq ku yeeshay. saas awgeed ayuu qofka markaasi wuxuu isku arkaya barar joogto ah iyo wuxuu ku arkaya jirkiisa dhexdiisa ayuu ku arkaya. malabka qofka markuu isticmaalo wuxuu isku arkaya calaamadaha soo socda. kow barar buu wuxuu ku arkaya halkaas wejigiisa, qoorta, garbaha, maxaa la yidhahdaa inta shafka, dhabarka dambe, coloosha ilaa qaarka. waa maqlaysaa tiktoorka wuxuu yiri qof kasta waxaa loo sheegay in malabka lagu cayilo. horta cayilka ilaahay baa hay ilaahay ku sii cayil haddaa rabto walaal salaadaada tuko ilaahay bar ilaahay rabbi cayil baa raba waxa cuntaan ku sheegaa habeen kasta waxa cuntaa chicken leg on fact iyo waxa fitiinka on hada iska cayilayo maxaa daawo walaalay oo isku soo dardaray naftaada isku halaagaysa halaag weeye. daawooyin isku soo dardaray ama dhir oo waa dhir hadda waxa isku soo daray ma ogtiin waxaan waa dhir waa kan oo kale arag kan maxaa weeye fiiri waxaa ku jira arag hal qasal leeyahay arag waxaan sabaa kale waxaan weeye ma fahamtaa waxaa soo kale isku soo dardaray maxaa walaalay naftaada waa ishalaajinaysaa laisku qalqalday ama laisku walaaqay oo kaato oo laisku daray oo sida waalid ah lagu cayilaya ayaa magaciisa la yidhahdaa. markaa saas awgeed dadka soomaalida khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan gaas inay ka qaadaan. khatar badan waxay ugu jiraan maxaa la yidhahdaa dhiikar inuu ku dhaco. khatar badan waxay ugu jiraan inay ka qaadaan xanuunka kolestaroolka. khatar badan waxay ugu jiraan inay naftooda halligaan. markaa saas awgeed haddaba ogaada tiktoorka wuxuu yiri malabkaas qofka markuu isticmaalo calaamadu isku arkaya. haddaba ogaada calaamadahaas baa dhegeysanayna waana tiktoor ninkaan waa nin wax bartay. haddaba ogaada ciyaar maaha ninkaan waa nin weyn nin wax bartay. dadka beenta ma ahan dadka miidiyaha intay soo fariistaan bow waxa walba iska sheegaya ma aha ninkaan waa nin waxa weeye wax soo bartay weeye ilaahayna anoo daayo. haddaba sharaxaadii لا دقيقة شرحها. محل هذا إنسان فورا وكل خطر وجرا يأخذ عشان كرتي بكركي كوليسترولكي حنونا دي ونادم هنا يأخذ عن ما ده حسدي يقولوا كفر ما يا خطرة مركز أو نبى مثلا متكود وهنا عدي سام ملكان ملك مركز كود وحكي كسر يسني ما حيسا وحلك لاعي إلهي وربي ملكان هدوء كفرت ملكان كان ملك معهن كان أني وضو ملك معهن رجع يدوبك استعمال كان لكن وجوني ملك كاس ارتماعين دول ملك كان أركي كي على كان عمري مالها سلاكان قبل باكان تي مالها مراكب بأسسعت marka waa arka malabkaano maalinda weedo suuqa kala aadayo laayahay neeroy malabka waa laga soo dhiibay kaalay waa qatar malabkaana way ku sheekaysanayeen anigana alaabta waxba gadanay haddaba please waxa laga codsanayaa waxaan ayilka raadinaysaan wax kala fiiriya walaalayaal waxaan dadkan wax isku soo dardareen naftaada walaalay isku halaajin bismillaahir rahmaanir rahiim ugu socotaa loo isticmaalo qofku wuxuu isku arkayaa calaamadihii aan soo sheegay. marka saas oo weed qofka Soomaaliga waxa u fiican inuu ka fogaado malabkaas inuu iska daayo xaalirada ay qaataan digniinta iyo dhibaatooyinka xaalirada dadka ay ka sheeganayaan. dhaqaatiirtu way la kulmaan maalin kasta waa la arkaa dawooyin badan baa la isticmaalaa malabkaas kaliya aan ahayn oo big power ku ka yahay erbada baa la qaataa faanol fararka ma qabna ujeedaan waxaa la yiri daal badan isku arkaya subxaan allah waayaa naftaada halis u gelinaysaa ninkaas doctoorka waxaad sheega waa maqlaysay anigu
saara aana waxaan igu talina xulbo bisbeshin relaxi murugta adduunyada iska ilow adduunyada waa iska dhib badan tahay bal waa wada dhagaysanaynaa dikaam waa taqaanaa jirka ku dikaamayo ilaah rabbi amuuraha noo sahlo waxyaabo la isku qalday oo la isku sameeyey lamana yaqaano laakiin khubarada caafimaadka markay fiiriyaan calaamadaha noocan oo kaleeto waxaa lagu arkay inay ka buuxdo daawada la yidhaahdo cortisone oo ayada naftigeeda lagu daweeya allergiga ayaa lagu daweeyaa cuncunka ayaa lagu daweeyaa waxaa lagu daweeyaa oo kaleeto maxaa la yidhaha qofka neefta ku dhigtay oo kaleeto ayaa lagu daweeyaa waxaa lagu daweeyaa oo kaleeto meelaha xanuunka isgoysyada ayaa lagu daweeyaa markaa saas awgeed maadaas marka lagu badiyo ama aad loo isticmaalo qofka wuxuu isku arkayaa calaamadihii aan soo sheegay markaa saas awgeed qofka Soomaaliga ah waxaa u fiican inuu ka fogaado malabkaas inuu iska daayo maxaa la yiraahdaa ay qaataan digniinta iyo dhibaatooyinka maxaa la yiraahdaa dadka ay ka sheeganayaan dhakhaatiirta way la kulmaan maalin kasta waa la arkaa dawooyin badan baa la isticmaalaa malabkaas keliya aan ahayn oo big powerku ka yahay cirbada baa la qaataa shuruubooyin baa la qaataa xitaa waxaa la ii sheegay cajiinka ama baalka la yiraahdaa faxiso in la isticmaalo in isku cayido markaa saas awgeed waa inaad ka fogataan oo isku daysaan aad iyo aad baad umahadsantiin sidaas nabadgelyo waa maqlaysay ninkaas doctoorka waa maqlay tintay u fiican tahay khamiirasadaa lagu leeyahay kan wejiga u fiicaya kan saanoya kan miyaana nafteena ah la geliyeen Allah subxaanahu wa ta'ala quruxuna siiyay dadka anaga ugu qurux badan bilaadka anaga ugu qurux awala naftaada halisa gelinaysa waxaan ka yaaba anigoo maskaxdayda ka wax alla wixii la arko waxa lagu leeyahay waa wax herbalife waa wax fiican kaala gado kaala hada qofkan dhibaato badan u maanaysa wala aniga toobo wax qof wada bila aadana in my life keyga igama maqlays mana igu arkaysay mana taabana wala hal wal xaato way fiican tahay oo beenaan sheegan geedda dacarta idoo fresh hada soo gadid geedas aad u fiican tahay geedas ana tijaabi aad u fiican tahay malaha anigu waa ku fiicnaada adigu kuma fiicnaa karti saara ku fiicnaatay anigu waan ku fiicnaana cun isku jismi ma noqon karno isku power ma noqon karno isku healthy ma noqon karno marka walaalayaal Soomaaliya ilaahay qeyrana siiyo waxaan iska ilaaliya waa maqlooysa waa cayilaa lagu leeyahay cayil maxaa ka rabtaa hadoo ilaahay caafimaad ku siiyo oo neefsan kartid oo sokor qabin oo dhiig kar qabin oo cudurro kala qabin oo cholesterol qabin oo waxba qabin alxamdulillah wa shukr caalamiin wallahi dhaladan oo la keenay oo la dhahay waxa laga fiirsadaa caalamka masiibay dadku u keentay walaalay qariya caafimaad iyo barwaaqo dhiirgeliya aniga waxyaalo badan ayaan soo keeno oo dhacday marka like iyo sharing iyo comment iyo subscribe iga iloobina waa mahadsantiin jazakallah khair video kale